بدرونيغي weligiisu wuxuu dhihi jiray guuldaro marnaba ha qaadan wax fiican dhageyso wax xun ka dhaxbax anigu waxaan ahaa nin ciidan waqtiga iyo shaqada waa muhiim in la ilaaliyaa hala gaaro markaas ayaan ilaalin doonaa sidoo u dagaalamay waqtiga ayaa ku dhamaaday waa maxay adiga dhibka ku haysto ninkaas hadda jeelka ayaa la wadaa wixii qaab uu mutaysan oo la martiinaya xaaladiisa markaan ogaaday wuxuu ka soo baxay xaafadda tuugada kadib wax badan markii aan fikiray ayaan go'aan gaaray waxaa shaki weyn iiga jira ciidankaana nin ka mid ah in la iibsaday ninkaana waa Major Jebakshi kadibna uu damac qaaday meesha muu dhib kala kulmaa maya marwo sidoo dhib ula kulmaya waa nin ciidan ah uu ku amaanaa wuxuuna dhahaa waxaa rabaa inaan noqdo sidii taliyahayga kale marna uma dul qaadanaya in ciidamadana kalsoonida lagala laabto war istajiyan ku dhahay adiga aniga ma ku balan qaadi kara laakiin waxaan isku daya gacanteeda inaan kugu dilin digniin ayaa doonaysa inaad siiso waadna siisay ciidanatiin waxa isku daydiin wax walba inaa ogaatiin war googla ma tihiin idinka ninkaas wax walba isku bedelaa nooc walba iska dhigaa jey aniga waa ku raadiya waana ku helaa taliya ilaa hadda waxaad ilowsan tahay wax walba adiga inaan kaa bartay jey waxaa maqash maxay ahaayeen wax badan ay ahaayeen aniga waxaan wax u qabtaa dadka aan dalkan dan iyo xaaje ka lahayn caada qaatamay waqti walbana waxaan jeclahay dalkayga iyo dadkayga inaan wax u qabto ilaa muwaadin ah sax adiga ma badanaysanoosid anagaa noo daniyahoosaamo aniga ma ka xumi aragtidaada laakiin waxaan ka xumahay qorshahaaga oo aad damacsan tahay in dalkayga aad qasto laakiin aniga kaama yeelay jey nolosha aad damacsan tahay inaad ku noolaato waa noocee fiigsanaan inaad ku noolaatidna maarataa yaa gadaashaada soo socday qof kale iska ilaalinin anila iska ka ilaali nagool ayaa hadda ka hor wuxuu yidhi inaan gar daranahay waxaan ku ogaaday dadka oo dhan ayaa farta igu fiiqan